warkii hore war soo dhaaf haddii wiilkan Cali loo yaqaano uu barankii ku sameeyay dadka oo dhan kaligiis ma ahan balse xaaskiisa ayaa barankii ka qaadatay qaybta ugu weyn bal ka waran haddii aan kuu sheego in mid ka mid ah gabdhihii ka soo muuqday filimkii Cali ay tahay xaaskiisa weliba ay qaadatay doorka ugu muhiimsan waa tuma xaaska Cali wiilka xoolo dhaqatada ah ee ka yaabsaday dadyowga Soomaalida markii dambana la keenay xaqiiqadiisa shalay isaga ayaa la kashifay wixii uu dhab ahaan ahaa maantana xaaskiisa ayaa la keenay oo baraha bulshada meel walba sawiradeeda la soo dhigay waa tuma gabadha xaaskiisa ah muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa balse intaana guda gelin like sar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan share dheh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena kale subscribe na saar YouTube-keena oo gambaleelka furo ku mahadsanid la jaanqaadkaaga tii horeba tana ka daran kashifaadii ceeb ayaa ku dhacday Cali oo ah wiil Soomaali ah oo ku nool Sweden kaasi oo ka yaabsaday dhammaan dadka Soomaalida kaasi oo ciyaarta qaybteedii hore ka yaabsaday dadka oo dhan kadib markii uu jiray filim cajiib ah laakiin hadda comeback iyo soo laabasho ayaa lagu sameeyay markii dhamaadka qaybtii koowaad la kashifay inuu xasla yahay maantana waxaaba la keenay in xaaskiisii filimka ay qayb ka ahayd Cali waxa uu la yimid filim Soomaalida ku cusub oo uu soo guuriyay iyo tixraaca barnaamijka filimaanta hore looga sameeyay ninka beeraleyda ah waxa uu rabaa xaas wanaagsan Cali waxa shalay baraha bulshada lagu faafiyay oo la kashifay waxa uu dhab ahaan yahay iyadoo la sheegay inuu xasla yahay sidoo kalena uusan lahayn lacagta iyo xoolaha uu muuqaalada ka soo duubo goobtan uu shaqaale ka yahay codsir ayaana la keenay oo dadka oo dhan ay ku wada qanceen laakiin hadda ay sheekadu ka sii dartay dadku waxay isweydiinayaan waa tuma gabadha xaaskiisa ah ee geesiyada ah ay u ogolaato wiilkan inuu dalbado gabar uu guursado iyadoo la og yahay in raggu uu damac badan yahay lagana yaabo in gabdhahaasi uu mid ka mid ah ka qaato biri laakiin la yaab ay qof walba ku noqotay markii la soo kashifay in gabar ka mid ah gabdhihii filimka ka soo muuqanayay weliba gabadhii ugu saameynta badnayd ay tahay xaaskiisa Cali xaaskiisa ayaa loo arkay inay tahay fikraddii ugu saameynta badnayd iyo shaqsigii ugu weynaa ee filimkan lagu daawaday haddii aad u fiirsato muuqaalka kuu muuqda waa muuqaal sira oo la keenay baraha bulshada oo tilmaamaya arooskii Cali kaasi oo ka dhacay Yurub xaaskiisana waa wariyihii filimka ee wacdaraha dhigtay gabadhan muuqaalka filimkan waxay ku lahayd karakterka ama doorka saaxiibka Cali ama wariyaha u dhaxeeya Cali iyo gabdhaha guurdoonka ah mar walba iyada ayaa lahayd maamulka iyo shaqada ugu adag ee filimka laakiin banaanka ayaa la keenay xaqiiqada xaaska Cali waa wariyaha filimka oo dhan marka ay sheekada sidaas tahay barankiga uu Cali dadka ku sameeyay kaligiis ma ahayn midka maskaxda dajiyay laakiin gabadhan oo wareysigeeda laga dareemay inay tahay gabar furfuran ilbaxnimo badan ay ka muuqato ayaa lahayd fikradda ugu sarreysa ee ruuxday baraha bulshada haddaba maxaa kaaga baxay muuqaalkan laakiin fiiro gaar ah weligaa ha isku dayin inaad dadkan Soomaalida aad qalado waayo waa kuwa baaris socoto ah haddiiba ay keeneen Cali iyo xaaskiisa oo aroos wada ah ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay fadlan ha hilmaamin inaad like sarto muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro ku soo biir page-keena oo follow dheh subscribe sar channel-keena si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena kale adigoo sidoo kale gambaleelka furanaya waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga